kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta Bollywoodka kaas oo aan ku soo qaadan doono aktar caan ku ah musalsalada filimada kaas oo lagu magacaabo Fatsal Sheikh. Fatsal Sheikh Soomaalidu waxay u taqaanaa Shooriya mise Araf. Fatsal wuxuu dhashay 5 Agoost 1980 wuxuu ku dhashay magaalada Mumbai ee dalka India kaas oo ka soo jeeda waalidiin Gujarati ah. Fatsal wuxuu waxbarashadiisa dugsiga hoose ku soo qaatay iskuulka lagu magacaabo Abtal Shangiif School. Dugsiga sare wuxuu ku soo qaatay iskuulka lagu magacaabo Gokaliba Sikh School. Dugsigiisa kombiyuutarka wuxuu ku bartay Philipar College. Fatsal wuxuu xirfadiisa jawaaynimada ku bilaabay musalsalka lagu magacaabo Just Muhabbad ee jilistiisu socotay sanadihii 1996 ilaa 2000. Fatsal wuxuu kaloo ka soo muuqday musalsalo badan. musalsaladaas oo ka mid ah Jalaag Jilhalaja 2013 2014 wuxuu keenay musalsalkii weynaa ee Ek Hasina ee Soomaalidu u taqaano Holi Inceebka kaas oo magac ahaan uu ku jilayay Shooriya Kuwinga. wuxuu kaloo 2016 keenay musalsalka lagu magacaabo Ristom Kasaudagar kaas oo magac ahaan uu ku metelayay Araf Taridevi. labadan musalsal ayaa ku noqday Soomaalida waxyaabo cajaa'ib ah. Fatsal kuma saddex muuqan musalsal oo kaliya wuxuu kaloo ka soo muuqday filimaan badan oo door libaax ka qaatay kuwaas oo ay kala yihiin Tarzan, Tiwader Car oo lagu magacaabo gaarigii la yaabka lahaa, Ajay Devgan oo aabanimo ugu jilayay. filimkaas ayaa noqday filim aad loogu xiiso dhacay oo dalka India si aad u gilgilay. filimkaas ayaa soo baxay 2004 filimkaas oo magac ahaan uu ku jilayay Raj. 2007 filim kale oo ka soo muuqday waxaa ka mid ahaa Nanhi Jaisalmer oo magac ahaan uu ku jilayay Vikram Singh. wuxuu kaloo door libaax ka qaatay filimkii Heroes oo sanadool u waday oo magac ahaan uu ku jilayay Ali Khan. 2009 wuxuu keenay filim lagu magacaabo Bayangi oo magac ahaan uu ku jilayay Jayesh Thakur. 2010 wuxuu keenay filim lagu magacaabo Toh Baat Baki oo magac ahaan uu ku jilayay Yufraj. wuxuu door libaax ka qaatay filimkii lagu magacaabay Jayho oo waday aktarka caanka ah ee Salman Khan. aktarkan muddooyinkan dhow waxyaabo fara badan ka soo muuqday sida musalsalo fara badan oo uu la keenay sida aktarada caanka ah ee Soomaalidu u yaqaanaan Aisha iyo musalsalo fara badan ayuu keenay. aktarkan noloshiisa hadda ku soo gabagabeeyay inuu musalsal kaliya oo jilo filmadii oo dhan iska dhaaf. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa taariikhda aktarka caanka ah ee Fatsal ee Soomaalidu u taqaano Shooriya. sidaas iyo nabadgelyo.